قرآن فجر يا أخي مشهود. dantaada raac marka lagu leeyahay ha u qaadan inuu qofku ku dhibsanayo balse waa wanaag uu adiga kula rabo. oday xikmadeysta ayaa la weydiiyey dadka yaa ugu nacaseesan, wuxuu ku jawaabay qofka danaha dadka raaca oo tiisa ay ka qabyo tahay, yacni dantiisa aan raacin. qof aad necab tahay ama aad uurka wax ugu hayso, haddaad danihiisa baadho ama wuxuu necab yahay ama ceebtiisa aad rabto inaad dadka ku ceebayso, ka joog arrintaas. waa hadday kula wanaagsan tahaye. saa awgeed qofka qari ceebtiisa, maxaa yeelay jinku wuxuu ugu necab yahay waxaa ka mid ah in qof muslima aad qariso ceebtiisa. kuwa ku dhahaya ila shaqee ama hawshan ila qabo, la qaba hawshuu sheegayo, laakiin waxaa muhiim ah inaadan kaga mashquulin shaqadaad u socotay. waxaa mid lala yaaba ah in qof markaad ku dhahdo hawshan ii qabo uu dhaho waan kuu qabanayaa isagoon awoodin hawshaad u dirsatay, oo aad hadhow ku dhahdo war meeday hawshan kuu yidhaahday ii qabo, wuxuu kugu marmeersanayaa waan qaban waayey. laakiin waxaa intaas kaga fiican adigoo ah saaxiib kuma qaban karo hawshan mana awoodo. waana arrin fiican inaad qofka markasta saas ku qanciso. haddaba ugu dambayn walaalo, waxaan talaya tusaaleba kaaga tegayaa inaadan mar walba isdhiibin oo aad digaar walboo noloshaada ka mid ah aad jiidho. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.